maanta waxaan ku suganahay dekedda macmilka ah ee degmada Hobyo halkan waxaa ka digaya doosida shixnado kala duwan waxa halka ka daawo doontaan hab socodka dekedda ee maanta iyo sidoo kale badeecadaha halkan ka digaya maanta maarayaha dekedda Hobyo Xasan Daacad ayaan ugu horeyn wax ka weydiiyay shaqada dekedda bismillaah awu soo dhawow maanta waxaan joognaa dekedii Hobyo macmilka hay'adda shaqayn jirtay alxamdulillah waxaan loo dagayaa badeecooyin kala duwan oo ka dagaya shirkadda Hobyo ay keentay hadda shalana sidoo kale mid ka horeysaan dirnay oo noo dhamaatay alxamdulillah leenahay shaqadii waa noo socotaa waa ku hadda waxaan shaqaynayaa dhalinyaradii galmudug oo xoogsitada ka ah dekedda marka shaqada dagaysa waa shaqad kala duwan sida spare partiga gaadiidka badeecooyinka noocyadooda kala duwan oo elektaroonig ah oo nooc walba la weeyay iyo gaadiidka yaryarka intii waa shaqadii waa taas insha Allah saas u socota hadda waa quruxda badan haddana waxaan sugaynaa kuwa badan oo li dhimano bari iyo soo galaya maanta marka soo dhawaw waa niyo baahiyada ka jira waxaan ku ilownay mid cusbaan loo dhisayaa marka qalbigeenu wuxuu jira halkaas midda marka baahiyeeda hadda ka jiraay culeyskeedu taas uu noo saaran yahay waxaan haminaynaa hadii Ilaahay idmo inaan sanadka labaad ama sanadka saddexaad inaan dekad weyn isticmaalno oo qasri ah oo ummadda kale oo naga maqan oo Soomaaliyeed u soo shaqo tagaan anaguna aan ka shaqaysano hadii Ilaahay idmo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin aniga oo ah Xamuud Axmed Nuur wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha afkeeda ku hadlaya waxaan joognaa dekedda macmalka ah ee Hobyo dekeddaas oo maanta ay ka dagayaan shixnado kala duwan sida bagaashka baabuurta macnaha waxa weeye iyo bagaash tiro badan oo kala tood dekedda macmalka ah waxay shaqaynaysay muddo aan leenahay sida badda u furantay ay shaqaynaysay muruqmaal tiro badan ayaa ku diirsaday oo waxa weeye dadkaas tirada badan ayaa u soo xamaal tagay ka kala yimid reer galmudug daafeeda kala duwan ilaa iyo waxa weeye Puntland dadka yimid u soo xoog tagay waxa weeye intaas waxa lagu gaaray dawladda galmudug waxa weeye dadaalka badan oo ay samaysay iyo xasiloonida iyo nabadgelyada ay ku furan tahay waxaan leenahay dawladdu waa mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaad amniga ay ka shaqaysay aad bay ay wax walba ay ku tilaabsan karaan amnigaana saldhig u ah muddo badan oo dheer aan soo shaqaynaynay shaqadaasina hadda waxaa taagantahay gabagabo adiga wax yar baa dhiman xilliga badxirka ahayd oo waxa weeye doonyuhu shaqadoodu gabagabo lahayd adiga bil iyo laba meelahaas ka dhiman shaqadaasina waxa weeye si habsami leh ugu dhamaatay waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad dadka xoogsatada oo waxa weeye dekedda soo hanqaloocaya ha ku soo shaqo tageen horumar wanaagsan oo la taaban karaa ka socda ay ku tilaabsanayso tii weyneedna waa sugaynaa insha Allah tacaala waa hanqal taagaynaa aad iyo aad baa mahadsantihiin waxaan ugu soo booqday dekedda maanta awoowe waa mahadsan yahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay waa mahadsantahay awoowe bismillaahir rahmaanir rahiim maanta oo taariikhdu ay tahay 11 waxaan joognaa dekedii Hobyo magacaygu waa Cawil Cali Diiriye waxaa degaya doomaa degaya shala doona goosatay maanta mid baa taagan kuwa way soo socdaan badda ku soo socdaan shaqadu aad iyo aad u kala socotaa maanta waxaan rabaa inaan ummadda aan u sheego ama uga faa'iideeyo qaabka maanta ee Hobyo ku sugan tahay ma aysan ahaa jirin waa qaab cusub waa deked yaa la dhihi karaa inta ka dhimanna lagu daran leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu ah Abuukar Umar Jawaase waxaan ka soo hadlayaa Hobyo waxaan dhex taaganahay dekedii kheyraadka badneed oo galmudug ma sha Allah waxaan rajaynaynaa dhinac walba inay ka dhisan tahay waan rajaynaynaa hadirtaana waa shaqada waa kala socotaa dhammaan muslimiinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan galmudug waa laga soo holgali doonaa goordhow maareeyaha dhammaan wasiirka dekedii dalka galmudug dhammaan waan salaameynaa madaxweynaheena qoorqoor waa salaameynaa khayr iyo khayraad baa u rajaynaynaa insha Allah billaahil kariim waa kala socotaa dekedda gawaari baa ka digaysa wax walba ka digaya alaab baa ka digaysa
ما شاء الله 20 دويود 16 دويود 20 15 mid walba waa ku soo xirataa meesha ما شاء الله كما قدنا رزقنا إلهي وأنا قوديا ما شاء الله سفيعا وشقينا أنا إنه حاجة الله إلا يعني كنا من نقرب كيني دولة دينا قلمدو عن قرب تجنا وأنا شقينا دت كيني دل كينا عن كشقينا غيرات كينا حقوق تانا رزقنا عيشنا ما شاء الله وأنا سود ويننا كسودو وكلنا لباح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا عبد الله محمد عبد الله وكنا دقمديس هوبيو oo ku faraxsan maanta ma sha Allah shaqooyinkaas tikadaas ma sha Allah oo hadeertaan insha Allah mar dhow Soomaaliyeena noo sheegay oo ma aragtay oo anagana ku hamweenahay insha Allah inuu noo dhismato tikadeena oo tikadeena inoo hagaagto inkastoo hadeertaan badxiriye iyo wax iska soo dhaw yihiin insha Allah de kullu wax kastaba de Ilaahay wuxuu keenaa macnaha dhaco oo anagana waa anaga dhalinyartii waa kuwaas tikadeena sidaas ay u shaqeynaysaa waxa ku yiraahday baahi kala hadda ka hadlameeno oo aan ahayn tikadaas inay noo dhismato oo dadka masaakiinta oo ganacsi wax ay ka raadsadaan oo ma aragtay meel kasta insha Allah billahi kariim si wax noogu imaadaan rabnaa insha Allah billahi kariim de aad anaga waxa raacsanahay shacabkeena maariyaa soo noo sheegay insha Allah wax kasta waa hagaagi doonaa insha Allah billahi kariim